yaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. kulanti wacan meel kastoo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadkood ka dhagaysataan idaacadda VOA. toddobaadkana barnaamijka faaqidaada waxaynu ku eegi doonaa xilligan waxay dood adag ka taagan tahay arrinta doorashada, gaar ahaana guddi doorasho ay magacooda dowladda Soomaaliya. guddigaasi oo hadda gudagalay jadwalkooda doorashada iyagoo soo saaray jadwalkii ugu horreeyay ku qabanayaan doorashada aqalka sare. waxaase weli arrintani dood ka qaba musharaxiinta mucaaradka ka soo horjeeda dowladda iyo matalaada gobolada waqooyi, gaar ahaana guddoomiyaha aqalka sare iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada waqooyi qaarkood. barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya oo marti noogu ah xildhibaan Dr. Cilmi Maxamuud Nuur oo ka tirsan golaha shacabka, xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo isla golahaasi ka tirsan, iyo Cabdullaahi Maxamed Shirwa oo ka tirsan bulshada rayidka. dhammaantiin soo dhawaada. waa dhawaa aan ku horeeyo Dr. Cilmi, aad baad arrintan uga soo horjeedeen, walaac baad muujinayseen, dowladduna guddiga magacowday, maxaad diidan tihiin? xagee wax marayaan xilligan? bismillahi raxmaan raxiim. waa salaamaya Shirwac iyo xildhibaan Jeesow, waana salaamaya bulshaweynteena dhegeysanaya dhammaantood. waxaa leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxa weeye runtii arrintu ma aha kasoo horjeed iyo ogolaanshiyo diidmo ma aha. arrintu waa xaaladda dalku uu marayo inaan muxuu ahaay runtii in doorasho la qabanayo, doorashadiina markaasi aan muxuu ahaa habraaceegii iyo nidaamkeegii heshiis lagu ahayn, oo loo baahan yahay in muxuu ahaay laga heshiiyo. doorashadii weli ma dhicin, in markaa laga heshiiyo habraaca loo qabanayo doorashada in laga heshiiyo. marka waxaanu ku baaqaynaa waxa weeye warbahasha dhulka dhiga, guddiyada ha laga heshiiyo, habraac ha laga heshiiyo, doorasho dalka ha laga wada qabto, laisu yimaado. waxa weye taas weye waxaan ku baaqaynaay. marka haddana mar kasta oo soo dhawaado waktigu waxa weeyaan options iyo khiyaaraadka furan cidhiiri bay gelayaan. cadhada iyo khilaafka iyo sawaxankuna waa sii kordhaya. waad arkaysaan xaaladda dalku meeshuu marayo. waa waxaa had iyo jeer aan ka digayna waa khilaafkan ha la yareeyo, dadku ha ka tashadaan sidii doorasho loo qaban lahaa. waan gartay xildhibaan Daahir, in doorasho laga tashto, laga heshiiyo, loo dhammaado, maxaa diidan? waa salaamaya odayaasha ragga akhyaarta ee ku jira meesha, Dr. Cilmi iyo Shabka, dhammaantood waa salaamaya. marka ugu horeyso doorasho wax dhexda la dhigayo iyo wax dhexda dhigmo iyo wax dhexdhexaad la yiraahdo midna ma jirto. doorasho waa doorasho cidaa waajib oo waajibkeeda la saaray inay qabato. doorashada waxaa waajib ah inay qabato dowladda, muxuu ahay fulinta, hay-adda fulinta inay qabato. muxuu ahay waxa la dooranayo ma aha doorasho madaxweyne ma aha, waa xildhibaanada doonaya, dadka doonaya musharaxiinta inay noqdaan, inay goobihii ay ka tartamayeen ay xaadir ku noqdaan, hay-adihii amniga ay ilaaliyaan. guddiga samayntiisa waxaa iskale dowladda dhexe. marka waxaasoo dhan waxa dowladda federaalka muxuu ahay golaheeda fulinta inay qabtaan oo waajib ku ah waaye. dad baa waxaa beryahanba afka ku badnay doorashada dhexda hala dhigo. war waxaan wax dhexda dhigma ma ah. ninkii doorasho rabow oo xildhibaan inuu sharaxa rabow deegaankaaga tag. waxaan ku faraxsanahay Dr. Cilmi in doorashadii ka horeysay aan iskula jirnay wax farqiya oo u dhaxaysa male. doorashadii hore dowladda federaalka doorasho dadban ay ahayd, tanna doorasho dadban waa. doorashada dadbanna waxaa waajib ka saaran yahay. xildhibaan Daahir, waa isweydiinaynaa waxa qaldan waa ka doodaynaa, dhexda inoo taal. Cabdullaahi Maxamed Shirwa, maxaa idin muuqda mucaaradka wad arkaysaan dowladdii go-aankeedu uu cad yahay, guddiga ee magacaada dooda ka jirtana hooshii wataan, maxaa idin muuqda bulsho rayid? waa mahadsan tahay akhyaartana waan salaamayaa iyo dadkana dhegeysanayaba. waxa noo muuqda waxa waaye horta annaga waxa noo muuqda waa khilaafkaa jira. khilaafkaana in laga heshiin karo ayaa noo muuqata marka ugu koowaad. khilaafka haddaan dib u raaco waa laba nooc waaye. mid waxa weeyaan dowladda dhexdeeda waaye, macnaha markaan leeyahay labadeeda heer
dadkii gaaray ama madaxdii gaartay heshiiska ayaa isku khilaafsan qaabka hadda muxuu ahay guddiga loo dhisay iyo qaabka muxuu ahaa mataqaanaa hawsha loo wadaba marka waxaa qolada kaloo saddexaadna waxa weeyaan qoladii mucaaradka ahayd ee ka qayb geli lahayd doorashada tartami lahayd marka annaga waxaasoo dhan laakiin waxaan u aragnaa wax laga heshiin karo wax haddii niyad sami lala yimaado iyo gorgortan siyaasadeed waxaan u aragnaa in wax laga heshiin karo ay noqoto ay tahay oo aysan u baahnayn in maaragta waqti badan lagu sii lumiyo dood waxaanu ku baaqnay in madaxdii heshiiday bal horta ay isu yimaadaan dadka kaleeta ee doorashada ka qayb gelayana laga kala geliyo muxuu ahay sida wax u socdaan marka annagoo wada jirna oo Soomaali ah oo muxuu ahay rabna in nidaamku hadduu isbedelayo si nabada isku bedelo haddii kale si nabada maaragta lagu cusboonaysiiyo marka anaga saasaa noo muuqata waxaa noo muuqata khilaafka hadda jira khilaaf si fudud loo xallin karo inuu yahay marka ay jirto niyad sami iyo wax isu ogolaasho Dr. Cilmi Xildhibaan Daar wuxuu leeyahay doorashadu laguma murunsano dowladda yahayd iyada gacanta ku hayso wax qaldan maba jiraan marka xagee se qabalaada wallahi waa ka xumahay saaxiibkay muxuu ahay jeesow inuu sidaa u hadlo waa xildhibaan weeye baarlamaanka ka mid a xildhibaan baanu nahay doorashooyinku waa laba mid un weeye arrintan iminkaan ka hadlaynaa doorasho maaha xulashaa la yidhaah doorashadu ama waa inay heshiis ku dhacdo siyaasadeed oo muxuu ahaayey dadku ay isla ogolaadaan oo markaasi inta danaynaysa siyaasadda danaynaysa ay isla ogol yihiin oo inta executive-ke muxuu ahaayey muxuu ahaa proposal geysa ama soo jeedisay ay isla ogol yihiin oo inta tartamaysa ee muxuu ahaayey ay ku qanacsan yihiin inuu markaa tartan xalaala oo habraacyo loo dejiyo oo saxii ay socdaan arrintaasi waa arrin heshiis u baahan weeye oo waxa waa heshiis siyaasadeed heshiiska siyaasadeedna cid keliya timo samaysay waa inay inta ka qayb galayso oo dhan iyo inta fulinaysa ay isku qanacsan yihiin qaabka u dhacay kama hadlayo doorashada fulinteedii kama hadlayo marka la fulinayo waxaan ka hadlayaa waxa weeye habraacyadeeda iyo qaabka lagu heshiiyey inay ku dhacdo ay tahay marka waxaa la isku diiday hadda doorashadii lama gaarin muddaa xoogaa inkastoo muxuu ahaa waqtigeedii tahay laakiin haddana ma dhicin waxaa la isku diiday habraacyadii weeye habraacyadii ma muuqda inaan muxuu ahaye inaan loo dhammayn marka waxaan leeyahay ama waa inaa heshiiskaasi wadar ogolkaa oo dadku ku heshiiyeen oo siyaasadeed oo ummadda laga dhaadhiciyey oo xukuumaddu soo propose garaysay ay tahay ama waa inuu sharci uu baarlamaanku ansixiyo golayaasha maray iyagoo wakiil uga ah bulshaweynta Soomaaliyeed iyo qaybaha kala duwan oo dhan marka sharcigaas ay xukuumaddii ku dhegan tahay oo la leeyahay sharcigaasaa la fulinayaa oo muxuu ahaayey uu baarlamaanku ansixiyo heshiis lagu yahay labadaa arrimood waxaanan ahayn horta doorasho lama qaban karo haddii ay tahay muxuu ahaayey hadda imka arrinta laga hadlayahay waa arrin fudud oo laga heshiin karo sida shirwac sheegay waxa weeye waa arrimaha guddiyada weeye qaabkii loo sameeyey oo saluug badani ka jiro oo laleeyahay war dadkan xakamkee garsooraha inoo noqonayahay dad lagu kalsoon yaho oo loo qaateen oo isla ogolnahay ha noqdaan waxaa kaloo muhiima muxuu habraacyada lagu dhaqan gelinayaana ha noqdaan habraacyo laga heshiiyey ama shuruuc waafaqsan oo laysla og yahay ha noqdaan xildhibaan daahir guddigan farsamee la isku hayo dowladdu soo magacaawday dowlad goboleeda qaarkoodna aysan soo magacaabin in laga wada hadlo oo la turxaan bixiyo miiska lasoo saaro maxaa diidan waa mahadsan tahay horta marka ugu horeyso waxaan rabaa doctor Cilmi iyo annagaba inaan usa qirno doorashadan waa doorashadii 2016 ka dhaceysay guddigii 2016 meeshii laga soo magacaabay ayaa kan laga soo magacaabay dawladihii 2020 aan joognaa xildhibaan daahir yaana ku laabay 16 ma qabnaan yaana waqti gelin halkaas waa mahadsan tahay okay adiga muxuu waaye adiga ay naqdeen ila doodayo marka waxaan rabaa dawlad goboleedyadii ayaa soo dhisay guddiga qaarkood diidan oo soo dhisin qaarka diidan iyaga heshiis ku galay heshiis sideedaba waxaa loo galaa inaan laga bixin
waxa toodii la raacay ee dhuusamareeb shirkii loo bixiyey heshiiskii lagu soo gaaray 300 oo argada ahayd waxa diiday ee xamar uu daba yimid ee beesha caalamka ay wacday ee goobjoog ka ahayd ee saxiixay kuwa hadda aad sheegayso diidan waa go-aan ay wada qaateen 17 September go-aan ay wada qaateen marka horta marka ugu horeyso anigu waxaan u arkaa waxa hadda ay walaalaha mucaaradka ama dadka musharaxiinta sheeganay musharaxiinta waa ogyahay doctor cilmi xildhibaan waaye waa fahamsan yahay qofka xildhibaan musharax wuxuu noqon karaa marka xildhibaanka lasoo doorto oo xildhibaanka baarlamaanka guddi laga soo saaro la ilaamiyo la yiraahdo musharaxiinta soo diiwaan geliyaan shuruudaha buuxiyaan markaas horta qofka musharax la dhihi karaa aniga hadda waxaan u arkaa nimanka hoteelada ku shiro nima tahdiidaya dowladii federaalkeed raba inay muxuu ahay ay tahdiid sameeyaan su-aasheeda usoo laabo guddiga laysku hayo xildhibaanada ka hadalno guddiga laisku haayo guddigii xaqa ahaa dadkii xaqa u lahaa ee dowlad goboleedyada ayaa soo magacaabay ayagaana shaqaynaya firi guddigii doorashada ee federaalkeed sida madaxweyne loo doorto waxaa diiday nimanka maanta hoteelada ku shiraya oo xalimiri ay gudoomiyaha u ahayd kanna hadda sidoo kale waa marka dadkan doorasho ma rabaana waxay rabaan tahdiid bas inay wax ku qaataanay rabaan aniga aragtidayda taas waa walaa guddi ma aha meesha maqaarka laga urinaya ma aha guddi ma aha yaa soo magacaaba ciddi soo magacaabaysa iyo ciddi tahay way caddahay waa la ogyahay 17 September heshiiska ayaa la raacay laakiin anigu waxaan u arkaa arrintan inay tahay arrin tahdiid oo qarannimada Soomaaliyeed in lagu tahdiido shaati musharax anay ila midda oo waliba heshiiskii baan hor yaalla xildhibaan heshiiskii baan dul eegaynaa waa ku soo laabanaa qodobkaas Cabdullaahi Shirwa doodan waxay soo bilaabatay dhowr bil ka hor September ilaa hadda welina dawladdu waqtina sulama muujin aad baana loo kala fogaaday markaas fiirso ku soo marka xagee laga aadaa meesha hadda la joogo meesha la joogo waxaa laga aadaa horta laba muxuu ahay dadkii heshiiska saxiixay inay dib isugu yimaadaan oo isla fiiriyaan oo muxuu ahay sidii hore loogu socdo waxa weeyaan halkaasaa laga aadayaa waxaa kaloo laga aadayaa waxa waaye horta waxa meesha yaallaahi waa qadiyad dadka oo dhan saameynayda qofka suuqa jooga qofka madaxweynaha u tartamaya qofka codka bixinaya xildhibaanka ama ergooyinka codka bixinaya xildhibaanka hadhoweytay madaxweynaha iyo guddoonka baarlamanka dooranaya waxaasoo dhan ayuu quseeyaa waxaasoo dhan ayaa waxaa la rabaa in la kala geliyo oo muxuu ahay agaasimkana ay dawladdu la wareegto marka horta fahamka ayaa u baahan inaanu meel isla dhigno haddii aanu u qaadano dad aan shaqo ku lahayn doorashada iyo dad shaqo ku leh kaliya aan ka dhigno waxaan u malaynayaa fahamkaasi sax maaha dawladda ama nidaamka dawliga ah waxa weeyaan ammaano shacab bay hayaan ammaanada shacabna waxa waaye sidii la rabay ma loogama baxo waqtiga aan ku jirno ayaa wuxuu leeyahay caqabadihiisa rasmiga ah oo u baahan maaragtay in tixgelin la siiyo marka anigu waxaan dhihi lahaa waxaa laga aadayaa horta waa kow dadka odayaasha ee shalay wax ku heshiiyey meelaha 2 meelood 4 meelood miyamaqaan ayaa caqabaduhu ka taagan yihiin oo qaarkood ay hadday is salaamaan hore ka dhammaan karaan aan u malaynayaa arrinta gado iyo arrinta gobollada waqooyi iyo waxa weeyaan guddiga waaye hadda waxaa laga hadlayaa saddexdaas arrimoodna waxaan qabaa inaan la geynin yacni meel aan la isaga imaan karin waa la isaga imaan karaa dhaqsaa loo xallin karaa ujeeddada aan dhammaanteen rabnaa waxa waaye doorasho nabad ah oo aan khal siyaasadeed iyo mid amni aan keenin qof kasta ayayna dan u tahay taas doctor cilmi xildhibaan daahir ood golo ka wada joogtaan wuxuu ku dooda uu qabaa in guddigan uu yahay guddigii saxda ahaa hawshii loo idmo uu qabanayo adinkuna waa diidan tihiin ama ha noqoto gobollada waqooyi ama ha noqoto guud ahaan doorashada Soomaaliya marka xagee wax ka qaldan yihiin bal guddigan dadka u fasir
waxaan isleeyahay runtii guddiga meelaha saluuga laga muujiyey waa la cadeeyey, waa lagu soo celceliyey wax badan baana. bal xildhibaanka uu sheegay waxaa la yidhi guddiga waxaa la yidhi inay guddiyadu ay noqdaan guddiyo dhexdhexaada oo sida moogtahay shuruucda dalku qabaan, aan moogtahay ahayn shaqaalana ahayn, aan ciidamada dawladda ka mid ahayn, inay noqdaan oo loo qaateena inay garsoore ka noqdaan muxuu ahaye doorashooyinka. waa uun aad bay iskaga fududahay. soomaalidu waa buuxdaa dad muxuu ahaye sharaf leh, dad muxuu ahaye qiimo leh, aqoon yahaniina oo ummadda soomaaliyeed ka buuxda oo culamaa udiina oo nooc walbale baa laga heli. haddii la yidhaahdo muxuu ahaye garta hebel baan saluug ka qabaa, wax dhibi kama jirto qofka garta loo qaadayahay inuu muxuu ahaye saluugi karo. ummadda soomaaliyeedna qof kale muxuu ahaa lagu bedeli karaayo wax dhibaataa ka jirto. laakiin haddii la ishortaagnaado maanta dhan oo anigaa idhi waa dhagax muxuu ahaye wax lagu qoray lagama noqon karo, hadday noqoto dawladnimadu way naga xumaanaysaa. dawladnimaduna compromise bay u baahan tahay in muxuu ahaye la isqanciyo, in laysku tanaasulo, in muxuu ahaye sida ay wax ku hagaagayaan ay dawladnimadu ku hagaagayso, doorasho raalli la iskaga yahayna ay u qabsoomayso iyaa muxuu ahaye muhiima. marka anaa idhi waan qoray ka noqosho male, wax ilaahay yidhi maaha. moogta ummadda soomaaliyeed doorasho waa qaban kartaa, waa loo tababari karaa. marka waxaan isleeyahay shuruudaha lagu xidhay lama odhan muxuu ahay hebel iyo hebel iyo hebel, waxaa la yidhi shuruudaha ha buuxshaan. shuruudahana waxaan aragnaa mushaarixiinta badankoodu siday qabaan ay yidhaahdeen muxuu ahay inay meelaha badan ay muxuu ahay saluug ka muujiyeen. in laysoo hor fadhiisto oo arrintaa la iska qanciyo waa arrin fudud wey. arrinta reer waqooyigu waa ka duwan tahay. maxaa yeelay somaliland waxa weye waa dal weyn weeye, muxuu ahaye oo muxuu ahaye xildhibaano fara badan laga soo dooranayo. taasina waxay u baahan tahay in habraac gaara oo shuruucdoo dhan ay sheegayaan horena loogu sameeyey, in shuruuc gaara loo sameeyo oo habraacyo gaara loo sameeyo. waa usoo laabanayna habraaca gaarka iyo cidda isku haydabaan doodiina waa budo gaar u tuman. xildhibaan daahir, heshiiskii September habraaciisa waxaa ku jirtay hufnaan lagu kalsoon yahay, bulshada dhexdeeda laga yaqaan, wax garsoori kara. marka shaqaalo dawladeed oo qarsooneyn baa guddigan ku jira. musharaxiintu ciidamo amni bay sheegeen, hay-adaha ammaanka la hadal hayaa oo la arabaabaya. marka ma waxaad rabtaa guddi shaqaale rayid ku jiraan oo hay-adihii amniga lagu xamanayo qayb ka yihiin, oo ma guddi saasaad rabtaa in adigana ay ku soo saaraan kuwa kan ay diidaan? guddigan maxay tahay macnaha gaarku kuu leeyahay adiga? cabdiqaadir waa mahadsan tahay. horta marka ugu horeysa inaan isdhegaysanaa fiican. guddiga waxaa xaq u leh dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka. dowladda federaalka inta ay soo magacaawdo waa in yar. guddiga waxaa soo magacaawday dowlad goboleedyada. cod kastoo soo magacaado shuruuda qoran soo maaha. cabdiqaadir adiga ama adiga ila dood ama dadka kale ha ila doodo. aniga waxaan ku yidhi guddiga waxaa soo dadka kula doodaya. cabdiqaadir iiga bax hadalkaa waad ib weydiisay haddaad rabtadne qof kale sii ama adiga ha ila doodine muxuu ahay aniga inaan ku khusuusiyaan rabay halkaa ka sii wado. xildhibaan adiga xaqun adigaa doodaya. cabdiqaadir guddigan majoritigiisa waxaa soo magacaaba dowlad goboleedyada. anigu mar haddayna doorashadii tooskeeda hal qofka iyo halka cod oo ahayd haddii aan waayo oo aan sharcigiisa aniga ansixiyey, doorasho dadban ay noqotay, dowlad goboleeda awoodda la siiyey. doctor cilmi iyo aniga waxaan ku kala duwanahay. doctor cilmi oo adiga waxa ku gubaayo oo aniga aan gubaynin maxaa yihiin mar haddii doorashada sharcigeena annaga aan ansixinay aan lagu qabanayno doorasho dadban ay tahay, ee boosaaso garoob laga soo magacaabayo, oo johor laga soo magacaabayo, oo dhuusamareeb galgaduud laga soo magacaabayo, oo koonfur galbeed laga soo magacaabayo. adeerta hadda waxna quseeyaba ma aha. waad og tahay soomaalida waxay tidhaahdaa cabdiqaadirow ulaan lagu jimeeyi laheen ama waa gaabataa ama waa dheeraataa. guddigan waxaa lagu jimeeyey guddigii muxuu siidka ahaa ee 2016 lasoo magacaabay ee xafiiska madaxweynaha 3 laga keeno, xafiiska ra-iisul wasaaraha 3 laga keeno, xafiiska gudoomiyaha baarlamaanka 2 laga keeno. weliba exactly sidaas ay ahayd. waad ogtahay sharcigii oo muxuu ahay doorashada dadbanayd. marka tiyo kale waay. aniga waxaan qabaa orgiga oo hinta ka weyn. arrin qarannimada Soomaaliya lagu qalqalgelinaa waaye. waxa la wado in la iska dhaafo
doorashada ha noola qabto doorashada xildhibaanaha soo baxaan xildhibaanada soo baxana madaxweyne ha noo doortaan doctor cilmi haye waxaan isleeyahay runtii qarannimada cidda duminaysa waxaan isleeyahay uga cabsanaya marka muxuu ahaaye xaqiiqada indhaha la iska saaro marka muxuu ahaaye gartu ay noqoto keliya sidaasaan sameeyey sidaa waa in la yeelo keliya ay tahay siyaasaddu sidaas maaha waxa weeye dalka waa la wada leeyahay waa loo wada dhashay madax baa laga wada noqon karaa dadka waa shuruucda waa u dhexaysaa heshiisyadu in muxuu ahaaye dadku ay isku qanciyaan baa loo baahanya siyaasaddu waa isku tanaasul iyo compromise wey dadkaan sidaa u fahamsanayna waxaan umalaynayaa dalka uma danaynayaane qarannimada waxa weeyaan aad bay halis ugu yihin aniga waxaan isleeyahay muxuu aha haddii la dhigto shuruudo cadcad oo muxuu ahay lagu heshiiyo oo criteriaha lagu soo xulayo guddiyada la sameeyo waa in muxuu ahay taa loo hoggaansamo wey shuruucda distoorka ugu horeeya muxuu ahaye qeexaysa inaan muxuu ahaye ciidamada laakiin doctor cilmi cid ku weydiisay ma jirta adiga ku tiri dowlad goboleedya wax soo xulay cid adiga kaala heshiisay ma jirta raalliha hawjeeso markaaga dhegeyso aniga waxaan ila tahay waxaan u danaynaynaa dalka weeye danta qaranka weeye sidee baa inoogu habboon sidee baa dadkeenoo is ogol dadkeenoo isku muxuu ahaa niyadsan inagoo muxuu ahaa raaca waxa doorasho waa sida ciyaarta oo kale weeye kubadda cagta oo kale weeye dhowr jeer baanu kusoo celcelin haddaanan garoonka iyo habraaca iyo referiga iyo cidda garsoorka iyo waxaas in laysku qaqabsado maaha waa in laga heshiiyo la yidhaahdo haddaanan garsooraha raalli ku ahayn garsoore kalaa la keenaya wax dhibi kuma jirto hadday ciyaartu inay noo hagaagtaan doonayno haddaan se rabto ciyaartu inay mid buuq iyo dagaal iyo rabshad ka dhacdaan doonaynana dee nin waliba meeshiisa ha ku dheganaado xanjo gidaar ku dhegan ha ahaa marka aniga waxay ila muuqataa muxuu ahaye ama dowlad goboleed ha soo magacaabo oo dowlad goboleed waa ka qayliyaya hadda oo laba dowlad goboleed markay diidan yihiin xaggeynu u soconnaa dalka haddii hal dowlad goboleed kelihaata ay muxuu ahay ka cadhaysan tahay le waxaas iima qabata ay leedahay in la qanciyey u baahan tahay oo intii meeshooda loogu tago muxuaha laysla fadhiisto oo laysla fahmaa loo baahanya dalkan inuu kala tego midnimadiisii iyo wadajirkiisii lagu dheelan maa waxaana ila muuqataa waxyaabaha laysku haystaay xajmigeeda yaan laga badinin waa wax aada u fudud waa wax la xallin karo waa wax haddii soomaalidu ay wada fadhiisata ay ka heshiin karto wey cabdullahi shir waxaan siinaya laakiin jeesa usoo laabta xildhibaan daahir laba maamula banaanka joogto oo puntland iyo jubbaland waqooyigana waad la socotaa doodeeda meesha ay marayso oo shalay ugu dambeyso khamiisa aqalka sare gudoomiye cabdixaashi uu ka hadla arrintan musharaxiinta muwaadiniinta xaqa un inay tartamaan muqdisho ay joogaan aad bay u hadleen marka waxa intaasoo soomaali ay diidantahay adinku aad rabtaan adiga iyo saaxiibada ku afkaarta miyaysan khatar u keeni karin dalka waa mahadsantahay horta wax khatar oo keenaya meeshaan yeella ma jiraana khilaaf hadduu yimaado khatar imaan karta dalka doorashaa laga qaban qofkii musharaxa oo shuruudaha musharaxnimada buuxsadana waa tartama laakiin halka su-aasha aad u weydiiso labada dowlad goboleed heshiiska lagu kor shaqaynayo ayay wax ka saxeexeen wax iska bedelay ilaa iyo hadda ay kula soo noqdeen meeshii heshiiska ay shalay ku galeen ilaa guddigii iyagaa soo magacaabanayo cid u soo magacaabaysa male muxuu ahay doorashada deegaankooda lagu qabanayo oo cid kale oo qabanaysa male weli waxaan ka warqabaa qolada siidka ee halkan muxuu ahay dowladda federaalka xamar ku qabanayso isku dardarka ah xamar ma dhaafayena guddi gaar ah oo muxuu ahay dowlad goboleedyada samaysteen dowladda federaalkana ay shaksiyaal ku darsat ayaa ka qabanaya meesha marka saaxib waxa ay diidan yihiin oo aanan ahayn dowlad nacayb tii dhuusamareeb ay ugu qeybgeli waayeen shirka tii beesha caalamka ay soo cadaadisay inta ay keentay tii heshiiskii ay galeen hadda ay ugu baxeen waxaanan ahayn oo markii qofka muwaadinka soomaaliyeed markuu dhidhimiye ay kasoo muuqanayso dowlad nacayb bas ay kasoo muuqanayso waxaan ahayn oy ku diidan yihiin malaha cabdullahi sharwac aad baad maqlaysaa dooda xaggee laga aadayaa aad baa loo kala fog yahay mana muuqato wada hadal hadda deg deg aho miiska saaran maxaa idiin muuqda bulsharaga horta intaanan su-aashaasi ka jawaabin waxaan jeclaan lahaa laba arrimood oo aada moodid in ay soo noqnoqonayaan oo inaan sheego waa mare horta waxa weeyaan khaladkii shalay la galay ciddii doontaaba ha gashee khalad weeye waa in maanta la saxaa
kan maanta la galana waa in berri la saxaa noloshu sidaas ayay ku socotaa haddii aynu laakiin ku dhegno in shalay wax qaldameen hore uma soconayno taasi waa mid waaye midda labaad waxa weeyaan guddigan haddii maamul goboleedyadu ay qaldeen iyaguna waa inay saxaan dowladda dhexena waa inay saxdaan yacni guddi lagu kalsoon yahay oo shaqadaasi maaragtay ciddii tartamaysay iyo ciddii codka bixinaydaba ay ku kalsoon yihiin inaanu helno waayo arrintaasina waa arrin dhib badan ma aha waa la xallin karaa waa mid waayo waxaan kaloo dhihi lahaa is-eedayntu meel dheer ayayna geynaysaa annaga waxaa noo muuqda inay arrintu xal ay leedahay haddii ay tahay somalilandna waa waxa weeyaan waa in labada dhinac oo siyaasadda isku haya muqdisho taalla iyo dad akhyaar ah iyo marwooyin oo aan iyagu siyaasadda ku jirinin saddexdaas group in laysu keeno wixii ay ku heshiiyaanna maaragta ay meeshaasi ka dhaqaaqdo waa aniga talay inaga tahay waddadaasi waddo oo muuqata oo xal lagu gaari kara ayayna la tahay arrinta gado waxa weeyaan doorashadii way daahday waa la arkayaa muxuu aha mataqaanaa waktigeedii waa aad buu ciriiri u yahay baarlamaanka waxa u haray waxaan u malaynayaa waa 2 beri madaxweynahana waktigii doorashaduna isaguna bil iyo dhowr beri waaye marka waxaan inaan ku xiiqno maaha waxaan waa inaan hore uga soconno annaga marka waxay nala tahay arrimahan waa laga heshiin karaa waa in la isaga yimaado laga wada hadlo iyagoo aan muxuu aha mataqaanaa lays ixtiraamayo shaqadana in la wada leeyahana la garanayo annaga nooma muuqato sabab muxuu aha mataqaanaa maamulada maqan iyaga oo maqan doorasho lagu galaahi waktiga hadda jira waxa weeyaan ma habboona wakti kale oo waxyaabo kale lagu xisaabtami lahaa waad ogtahay oo xiisadii 2 asbuuc ugu dambeeyay jirtay magaalada muqdisho dadka dareen culus bay geliday waxay soo xasuusiday 91 bay soo xasuusiday waxaasoo dhan waxaan u malaynayaa waxa weeyaan cidna dani uguma jirto walaa madax walaa mijo ciday dani ugu jirto ma jirto marka waxaan dani ku jirinin in lagu xiiqo maaha waktigana lagu lumiyo dadka hadda aan ka hadlayna maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda muxuu ahay saraba waxa weeyaan waxay raadinayaan xal bay raadinayaan marka aan annaguna xalka la raadino دكتور علمي ياسين gobolada waqooyi iyo doodada laakiin xildhibaan daahir walaaca 9 u eg saasaantiisu sheegay Cabdullaahi Shirwa miyaysan ku muuqan in dadka qulubtooda la dejiyo oo aan dadka maskaxdooda aan intaas walaac lagu abuurin una baahan oo kaliya in la wada hadlo doorashada u kala soo dhigo ma taasaan ku muuqan shacabka Soomaaliyeed 9 waa yaqaaniin umana oomana inay dib ugu noqdaan maxaa kala jeeda waa yaqaanaan waa dhibaatada ay la soo mariyay og yihiin iyo silaca iyo rafaadkii muxuu ahaa baahidii iyo muxuu ahaa bahaldilkii lagu sameeyey muxuu ahaa 9 waxa dhibkii 9 in la yiraahdo oo la soo xasuusiyo taasaaba dembi ah oo shacabkeena dembi ko laga galaa marka midda ugu fiican waxa weeye tahdiidka halaska dhaafo waa la ogyahay 9 dadka maalin walba afka ku haayo muxuu ahay dadka ku tahdiido ha iska dayaan 9 wax qurxan oo la soo maray ma aha wax qurxan oo la soo maray oo taariikh laga dhaxli kara ma aha 9 waa ilmo baahay u dhimanaayo waa wajigi dagaal dhacay xildhibaan daahir inuu dagaal dhacay sababta weyn oo khilaaf inuu yimaado marka si aysan balaayaba u dhacay khilaaf waa la gudbi karaa soo ma maya hadda fiiri cidda rabtaa dagaal inay dalkan gelisaa wiil dabka la saarto ha keensado ha soo qorto ha keensado anigu ma qabo dadkeena inay dagaal diyaar u yihiin hadda nimankan oo meelaha ku shira oo maalin walba 9 sheegana hadda nin qori garabkaas ugu jiro hadda furunta gala oo dagaalamayo dawladda Soomaaliya ma hayna meel ay ku sheegeen 9 hal shay ku sheega oo dhabta dawladda doctor Shiro wuxuu dhahay waxa u dhima 2 maalmood
laba maalmood iima dhinay ilaa baarlamaan lasoo doorta muxuu ahay kursigeyga ama aniga aan dib ugu soo noqdo ama qof kale oo yimaada baarlamaankana sii joogay baarlamaanka Soomaaliyeedana ansixiye arrintaas wax liira vacuum inay dhacdana lama ogolo laakiin nimanka maanta oo muxuu ahay dagaalku u gurbaantumay waxay rabaan xildhibaan daahir aan kaa dhexgalo musharaxiintuna lama joogaan doodana qayb ka maahan meelay dagaal ku colaamiyeen ama ay ku biratumeenna ma jirto aan ognahay ama fiyoda goobjoog ay ka tahay marka musharaxiinta afhayeenkooda jooga waxaa waaye doctor cilmi doctor cilmi gobolada waqooyi si gaaray doodaad u taagan tahay xagge wax ka qaldan yihiin aan u nimaana halkaas horta marka hore inaan saxaan jeclaan lahaa muxuu ahaa jeesku runtii waxaad moodaa in waxyaaba fara badan iskaga fogaaday qofka ra'yi ka duwan yeedaa inuu maaha mugtahay dawlad nacayb ku shaabadeeya maaha marka dawladda muxuu ahaa cidda ra'yi kale ay tiraahdahay waa dawladday nacab tahay ku shaabadayso waxaan leeyahay waxayna gaarsiinaysaa meel aada u foolxun caqliyadda noocaas oo kalena in laga koraa loo baahan yahay midda kalena waxa weeye in la yidhaahdo dadka layska eedeeyana ma aad baan uga xumahay moogtay inay sheekadu ilaa moogtay levelkaa hoose ay naga gaadho waxaan aada u jeclaan lahayn moogtahay in dadka wax waaqici oo loojig oo ummaddu ay ka faa'iidaysanaysaa inu meesha halkan nooga sii wada waxaan aniga ila muuqataa muxuu ahaayey anu afhayeenna uma yihiin musharaxiinta oo iyaga afhayeenkooda leh taa lafteedu waxa weeyaan jaalis ay ku tahay moogto waa murashaxiintu afhayeen bay leeyihin afhayeenkeygii baa joogay in halkan laga yidhaahdo ayna waxaan is leeyahay waxay kamid tahay unindhaa moogtahay caddayskaasay kamid marka ani waxaa ila muuqataa gobolada waqooyi markaynu u nimaadno waxa weeye waxay u baahan tahay habraac gaaray u baahan tahay siyaasiyiin baa jira oo muxuu ahaayey golayaasha fulinta iyo golayaasha baarlamaankaba ku jira siyaasiyiin muxuu ahaayey banaanka jooga jira dadka communityga muxuu ahaayey somaliland ee halkan joogay siyaasiyiintaabay ka dhexaysaa arrintaasi sida dawlad goboleedyadu arrimahooda iyagu u maamulaan bayna xaq ugu leeyihiin inay u maamulaan oo habraacyadooda u dejistaan muxuu ahaayey siyaasiyiinta la doorto oo cabdi xaashi uu madaxda ka yahay ugu sarreeya aqalkii muxuu ahaayey sare uu madax ka yahay iyo muxuu ahaa inta executiveka ku jirtee markaasi muxuu ahaayey xukuumadda kamidihiba intay iskaga yimaadaan inay habraacyo heshiis ay ku yihiin inay samaystaan bay xaq u leeyihin cabdullah maxamed shirwac bulsho rayid doorkiina weyn ee la xiriiray inaad adinka barashar group ah oo dabcan dawladda iyo mucaaradka iyo doodahan ilaa hadda maxaa tilaabo qaadeen waa su-aal aada u wanaagsan waxa weeyaan dhowr tallaabaan qaadnay horta waa mare waxa weeyaan dhammaan dhinacyada isku haya doorashada waanu aragnay qoladii ugu yar waxaanu saddex jeer baan aragnay qoladii ugu yar waxaanu xog badan oo arrintaas ku saabsanna waan ognahay waxaan kale oo aanu samaynay bulshadii rayidka ahaydna waan abaabulnay oo muxuu ah mataqaanaa waxay jira hadda 5 maamul iyo gobolka banaadir guddi ka dhaxeeya ayaa jira oo isku xiran oo hawshaasi meel walba ka wada ayaa jira waxa kale oo aynu hadda samaynay oo magaalada muqdisho hadda ka bilowday in culimadii iyo odayaashii dhaqanka iyo bulshadii rayidka ahayd abaabulayd oo dhalinyaro iyo haween iyo ganacsato iyo muxuu ahay dadka adeega ku mashquulsan oo aqoon-yahanka ah intaasna waanu isu keennay iyagana marka waxaasoo dhan waxa weeyaan waxaa soo kiciyey dadkaas tiradaas leh oo hay-ado badan oo kala matalaya maaragtay jaamacado iyo dugsiyo iyo muxuu ahay dhaqaatiir iyo nooc walbaba leh waxaa soo kaxeeyey waxa waaye in doorashadu ay ka alxaliyo khilaafka hadda taagan in muxuu ahaa mataqaana qofkii cadaf u galo uu helo doorashada qaabka loo gelayana inuu yahay qaab la isla ogol yahay oo dadka raba inay doorashada kusoo baxaan ama xildhibaan ha ahaadaano ama madaxweyne ha ahaadaano ama ha noqdaano guddoonka baarlamanka ha noqdaano dadkaas oo dhan iyo dadka codka bixinayahay waxay heshiis ku yihiin oo muxuu ahay mataqaanaa loo durbaantumayo oo wixii kasoo baxana maaragtay la wada ogolyahay waayo ogolaanshaha natiijada doorashadu waxay muhiim u tahay xasiloonida siyaasadda waxay muhiim u tahay mid xasiloonida nabadda amniga dhinacyadan aad la kulanteen maxay idin sheegeen jawaabtaasaa muhiim noo
dhinacyadaasi oo dhan waxay noo sheegeen inay ogol yihiin in la wada hadlo ayay noo sheegeen, taasay noo sheegeen dhammaantood. xildhibaan daahir, qaybihii dambe soo gaarnay aan soo koobno. guddiga doorashada dowladdu magacaado jadwal bay soo saareen, shaqadoodii bay wataan. dooda ka taaganna shaki kuma jiro, ma rabno inaan wakti badan gelino. marka haddii dowladduna saan kusii wado hawshan, mucaaradka iyo maamul goboleeda labada maqanna ay diidan yihiin, maxaa dhici doona? maxaa laga dhaxli karaa? waa waxaa dawladda loo egmada waaye inay doorashada qabato. shalay waxaan dad badan ay ku eedeynayeen doorasho ma rabaan inay qabtaan, maantana haddana doorashadii ay dedejinayeen in lagu eedeeyo gar ma ah. marka taas waa taa, doorasho waa la qabanaya, jadwalkeena waa la soo dejiyey, aqalka sare uu kusoo horeeyo. majority adduunyada waxaa ka jira waxa la yidhaha majority minority, 2 dowlad goboleed iyo 4 kale ayaa meesha taal. gobolka banaadir ku 4 ayaa ogol inay qabtaan. haddii marka ay doorashada inay qabtaan ay ku guul daraystaan, hadda sida somaliland diba loogu eegi muxuu ahaay ilgaara loogu eegi ayaa iyagana loogu eegaya. wax dhib oo jira ma, big deal ma. ciddii muxuu ahaay soomaalinimada jecelna way iidaa dalka u tanaasuli doonto insha allah. dr cilmi nuurhay, wallahi waxa weeyaan inta fikirkaasi jiro waxaan isleeyahay hadiiba dad la qabaayo ay jiraan, waa aad bay runtii khatarteeda u leedahay. dalkan haddii la yidhaahdo dowlad goboleed waa laga maarmi karaa, waxaan isleeyahay maalinba mid baad laga maarmi. marka waxaan maleeyaa marka dambe adoo cidla taagan baad sarki doontaa. soomaali cid laga maarmaa ma jiro, dowlad goboleed kasta waa loo baahan yahay. doorashaduna waa waxyaabaha dalka in lagu ilaaliyo midnimadiisa ay tahay. doorasho waxa loo qabanayaay waxa weeye in loo gudbo oo isbedelka xukun ee jiraay uu dhaco si muxuu ahaa sida ugu nabadgelyada badan, ugu xasiloon, ilaalinaysa wadajirka wey. waxaa lagu gaaraa midnimo iyo wadajir si aan la isku eersan, oon loo odhan maxaa xukunkii baad ku raactay ama cid baa booftay ama cid baa qaadatay aan loo odhan. wadajirka dalkay iyay ka shaqaysaa doorashada gebigeeda, isku haynteeday ka mid tahay. marka waxaan isleeyahay doorasho dowlad goboleedyo gaara ka dhacdaay oo badhna laga tegaay, halis waxay gelinaysaa dalka midnimadiisa iyo wadajirkiisay gelinaysaa, halis weyn bay gelinaysaa. waa meeshaasi waxay noqonaysaa halis weyn baa ka imanaysa iyo in dadku inuu kala tego. waxaan siinaa shuruuc gebagabada. waxaan rajaynayaa, ilaahayna ka baryayaa waxa weeyaan wadahadalkaas hadayta aan sheegay oo dhinacyadu ay muujinayaan inay qayb ka noqonayaan, diyaarna u yihiin in la amba qaado ayaa laga aadayaa. halkaasna lagu xaliyo wixii caqabada ah ama wixii cabasho ah oo la kala tabanayo. soomaaliduna markay isu timaado, inta aysan isu imaan baa dhibtu jirtaa, waxa weeyaan way xalisan kartaa. marka wadahadal baa laga aadayaa iyo doorasho la isla ogol yahay. dhammaantiin aad baad u mahadsan tihiin. barnaamijkii faaqidaada toddobaadkood ka dhagaysanayseen idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga ayaa intaas nooga idil. barnaamijka waxaa igala qayb galay oo aan u mahad celinayaa doctor cilmi maxamuud nuur oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee federaalka soomaaliya, xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka tirsan isla golahaasi shacabka, iyo cabdullaahi maxamed shirwac oo ka mida bulshada rayidka soomaaliyeed. waxaana barnaamijka intuu socday aynu ku eegeynay arrinta muranka dooda ka taagantahay doorashada soomaaliya, gaar ahaanna middan aadka laysku hayo xilli waktiga uu kasii ilaanayo hay-adaha la doortay oo ka mid yihiin golaha shacabka. dhammaantiin aad baad u mahadsan tihiin. aad ayuu u mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed cabdulle oo soo jeedinayay barnaamijka faaqidaada toddobaadka.